بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. كسو دبادا channel كينا هبة محمد. أحبابي أدبن دين سلامي دمانتين ميلو البودوني كجوكتين خير بدن نمعو برواقع أيان الله سبحانه وتعالى ويدي سنينا انت اسكدب إن شاء الله موضوعنا أيانو قد قلنا بإذن الله بارك. أحبابي انت وناقة جعل إلهي حفظيها إلاليو انت حن الله سوها ديو يعني انت وناكسن وناقة جعل إلهي حفظيو ها إلاليو انت وناكسن يعني انت حن ربي هسو هديو بإذن الله كريم. انت اسكدب waxaa jirtay video aan soo galiyay oo ku saabsan hablaha in maxaan ku dhahayay aqliga laga xadin oo maskaxdoodii la xadin ayay ahayd. Allahu musta'aane falcelin badan ayaa videogaas ka imaatay oo ah dhinaca weliba TikTok-ga lianna waxaan galiyay video yar oo short ah wax yar ayaan galiyay marka waxaa la rabay intaas yar markaad aragteen waxaan idiin soo saaray youtube-ka ayaa ku dhufan lahaydeen macnaha isaga ayaa halkaas ma aragtay halkaas aad tegi lahaydeen ood ka fiirsan lahaydeen videoga oo full ah laakiin waxaad samayseen intaa yar unbaad aragteen ee kooban intiiba falcelin badan kasoo laabatay. waxaan la hadlayay waxay ahaayeen hablaha gabdhaha yaryarka ah ee horujeedka ah in maskaxdooda la xadin ma fahantay maskaxdooda la xadin waxaan ka wadaa in mustaqbalkooda lagu dheelin oo jacayl beer ah lagu abuurin oo hadhowtina looga bixin. hal ayaan ka leeyahay marka midaas oo wiilasha علشان meesha falcelinta ka badan ka timid waxa weeyaan meesha wiil xun miya يعني aad iska raacaysa ama wiil xun miyaad مثلا sabiradaada aad u diraysaa marka sheekada meeshaas meesha ay maaragtay falcelinta badan meesha ay kasoo noqotay waa halkaas. horta wiilasha kulligood ma xuma wiilal wanaagsan iyo wiilal fiican bay iskugu jiraan sida shantaas farood aysan u sineen ayay wiilashuna iyo bini'aadamka oo dhanba ma sinno marka xagga wiilasha u imaanana wiilasha oo dhan kulli xumaan kuma tilmaami karno kullina way hagaagsan yihiin ma dhihi karno qaar xunna way ku jiraan qaar wanaagsanna way ku jiraan. qaarka aan abaaray aniga waxa waaye wiilasha xun oo arxan laawayaasha ah okay hadda idin leeyahay wiilasha xun oo naxariista lahayn xun markaad naqashid qofka markii xun lagu tilmaamo qof naxariis leh qof xun lama dhaho. wiilasha gabdhaha lugaha ka dabra oo maxaan ku iraahdaayay ku gumaada yacni dhaha مثلا ii sheeg sabir ay soo dirtay مثلا aan waxaan videoga oga hadlay waxayd wiil xun miyaa sabirkaada u diraysaa oo jacayl been ah ama yacni waa ku dhahay un مثلا hal mar waa ku jeclahay miyaa sabiradaada si fudud ugu dirdiraysaa sheekada halkaas ahayd. haddaanba ku leeyahay wiil xun horta markaan sheekada aan usoo dhaadhaco macnaheeda horta wiilka xun aan idinka jaahil bixinaya. wiilka xun bini'aadamku dad xun iyo dad fiican way leeyihiin wiilashana wiilal xunna way leeyihiin wiilal fiicanna way leeyihiin laakiin dadka aniga aan ka hadlayay waxaa waaye wiilasha sida xun gabdhaha intay sabir ii soo dir dhahaan haddana sabirkii ku rakaateeyo oo dhaho maxaan ku rahdaye intaasoo wax baan kaa hayaa waan garanaynaa dee ma doonayno waxa waa sheekada haddaa dhahdo مثلا soomaalidu waxay dhahaan afkaada fur ilkahaada aan tiriye okay taas waynu wala naqaanaa. kulli xaal ujeedadayda anigu waxa ahayd war gabaray caqliga yaa lagaa sirin oo wiilasha xunxun yaysan kaa sirin caqliga wiilasha wanaagsan
wiilasha wanaagsan oo horta raalli ahaada idinka aniga wiil wanaagsan xumaan ma ku sheegoy laakiin inta xun way istaqaanaa wiilasha xun way is yaqaanaan okay haddaan idin leeyahay wiilasha xun ee gabdhaha sharaftooda ku ciyaara way garanayaan wiilasha xun haddaan idin leeyahay okay kii xumaan ka didayo haddaan ku leeyahaybo wiilasha xun waxa uu ka wadaa gabar baa meel cidlo ah ka helaysaa markaasay waxay ku oranaysaa alla walaal ilaahay ka cabso miyaysan gabar kula dhalanin alla walaal miyaysan gabar ku dhalin alla walaal ilaahay ka baq uma jaxaanjaxayo uma naxariisanayo wuxuu doonuu samaynayaa hadduu wiil wanaagsan yahay keli markay ku dhahdo miyaysan gabar kula dhalanin walaal gabar miyaysan kula dhalanin keli markay dhahdo ayaa maxaan ku raadahay meel xanuuni lahayd oo walaashiis ayuu xasuusan lahaa isba walaashiisa in waxaas lagu sameeyo ma uusan rabi lahayn soo ma marka wiilka fiican gabar kuma sameeyo waxaan wanaagsaneyn mana u adeegsado waxaan wanaagsaneyn leanna wuxuu ogyahay kow yahaa dhalay waa gabar waa hooyo labo gabar way la dhalatay so kuma samayn karayo waxyaalaha maaragtay aan munaasibka ahayn aan fiicneen asbab ma jeclo walaashiisa in waxaa lagu sameeyo ma jeclo laakiin waxaa jirto waxaad ogaataa wiil walboo xun markaad gabar dhibaato u geysato in adigana lagaa jari doono mustaqbalka midaad guursato baa laga jari waana nafsi adigaad u keentay ama walaashaada soomaalidu waxay dhahaan god walaal ha qodin haddaad qodana ha dheeraynin haddaaba idin leeyahay labaad waxaad fiirisiin video markaan idin soo dhigo short ah youtube-ka aada youtube-ka ayaad ka helaysaa videogii dhammaystiran khayr badan baa idin rajaynaya channelka subscribe ii dhaha oo like ii saara insha allah commenti wanaagsanna nala wadaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu